magaalada Burco ayaa laga furay xarunta dhaqan celinta carruurta oo loogu magacaabo Al Khayraat. Munaasabadii furitaanka xaruntani dhaqan celinta Al Khayraat ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco, asxaabta mucaaradka, cuqaal waxgarad, culimaa u diin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Sheekh Cumar Hayba Jaamac oo ah maamulaha xaruntani lagu dhaqan celinayo carruurta ee Al Khayraat ayaa ugu horeynba ka warbixiyay. haddii aan in yar ka bixiyo xaruntan aan furay ee dhaqan celinta ah waa ogtihiin dhallinyaradeenii mashaakilka iyo dhibaatada haysta waa ogtihiin waxaanu ku fekeray war dadkii ka jeestay ilaahayna ka jeestay waalidkoodana ka jeestay dhaqankeena ka jeestay ee meel u socdaanba aan la garanaynin horta macquul ma tahay bal inaan meel gaara bal u furro oo bal aan isku dayno dadka inaan wixii macquula aynu dhaqan celino qabanno jeelashii baa laga buuxiyey cilaajadiiba qaar la geeyey miir qaba waaba loo taaglayahayba dadku wuxuu u baahan yahay qofkii in la dhaqan celiyo oo wax la baro oo iimaankiisii iyo caafimaadkiisii qalbi ahaan la soo celiyo xaruntaa waanu bilownay qalabaynteeda oo dhan waa dhammaynay hurdadoodii iyo cuntadoodii iyo waxbarashadooda u diyaar garaynay bal waxaanu isbarota xaruntan horta bal bilaabo dhaqaajiya markaa dhaqaajisaan dee shacab iyo dawladda u wada joogtaane bal horta marka hore idinku dhaqaajiya oo horta kubadda marka hore garoonka keena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur, xildhibaano, gudoomiyaha wadaniga gobolka Togdheer Maxamuud Doob iyo mas'uuliyiintii kale halkaasi ka hadashay ayaa soo dhaweeyay xaruntani cusub ee lagu dhaqan celin doono carruurta dayacan. xaruntani inay u baahan tahay iskirata way u baahan tahay in gacan laga geysto way u baahan tahay ganacsatada dawladda iyo sidoo kale bulshada kaleba inay ka qayb qaataan qurba joogta in gacan la siiyo xogayaa waxa laga rabaa dhulkii ballaadhnaa ee danta guud ahaa ee maalintii dhaweyta ay ku baaqeen ay yidhaahdaan ummadaan ma hayna inay xaruntaa lambar wan inoo siiyaan baynu ka codsanayna codsiga miyaynu ka daynaa dawladda ama ninka xogayuhu waxbuu ballan qaaday wuu sheegay odayaashu dee inay iyaguna ka howlgalaan bay ballan qaadeen xisbi mucaarada imka corona dhacay ganacsatada dad waaweyn iyo dad yaryar ganacsato yaryar in hay-ado mid walba wax u bixiyey xisbiyada mucaaradkii hanga office kumay darin bahal yar afka lagu xidhan bay darin hadal uun bay la soo taageen meel walba bal waa ka doobe dhulka Cismaan bixiyey ha yiraahdo baloor baan ku darayaa ama ha yiraahdo waxaan bixinaynaa haddaanu xisbiga nahay inta annagu wixii aanu bixinayno waxaan u diibaynaa oo xukuumadda baan wadanahay doobo intaasi waa inta waayo waa xarun waxa weeye loo baahnaa oo bulshada iyo ummaddu ay u baahnayd kuna soo aaday waxa weeye waqtigeedii iyo waxa weeye baahideedii ciddii wax ku qabanaysa ee u soo gurmata ee magac u samaysa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay xasanaadka miisaanka u raaciyo innaguna aan wax la qabanaa u leen dawladdana waxaan leeyahay horta dadku xukun la'aan iyo barnaamij la'aan bini'aadamku ma socon karo waxaanay u baahan tahay runtii in la isgarab taago haddii ugu horaada waxa cusub ee la bilaaba waxay leeyihiin oo u baahan yihiin waayo-aragnimo fara badan waxay u baahan tahay dadaal fara badan waxaan caawa anigu tala siinayaa oo aan khibraddii berigii hore aan arki jiray ka helay waxay u baahan yihiin manhajkii lagu tababari lahaa qof noloshii ka dhacay weeye waxaa loo baahan yahay manhajkii lagu tababari lahaa marka labaadna waxaa loo baahan yahay fankii iyo dhaqaalihii lagu hayn lahaa waxaan soo ballan qaadaynaa oo aan ku dhiirigelinaa dadkan maanta iskuulkan furay oo kale inaan isla garab raadno arrin iyo adduunka wixii aan u qaban karno daafurka xarunta Al Khayraat oo runtii la oran karo waxay ku soo beegantay waqtigeedii waxaan leenahay jazaakumullahu khayran dowrkiinni baad qaadateen waan isgarab taagaynaa Xabiib Ciga Xasan Hon Cable TV magaalada Burco magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha